wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee gobolka Togdheer ayaa ka bilowday garoonka Lemsey Stadium ee magaalada Burco tartan ciyaareed dhex maraya kooxaha heerka koowaad ee gobolka Togdheer. tartankani ayaa ah mid ay ka qayb galayaan 15 kooxood ee heerka koowaad ah, taasoo kooxda ku guuleysata ay noqon doonto horyaalka gobolka Togdheer, sida uu sheegay siduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee gobolka Togdheer Cabdikariin Muraad. garoonka kubadda cagta Lemsey Stadium si rasmi uga bilowday tartanka horyaalka naadiyada heerka koowaad ee degmada Burco oo ka kooban 15 kooxood oo u kala qaybsan 4 group, afartaas oo ay ku tartamayaan horyaalkii gobolka Togdheer. waxaa kale oo laga xuli doonaa xulkii gobolka Togdheer matalayay ku ciyaar lahaa magaca gobolka Togdheer tartanka naadiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland, tartanka gobolka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo laga xuli doono xulkan tartanka laga xuli doono. waxaa maanta halkan ka furmay ciyaartii koowaad ee ku wada ciyaareen naadiga ku ciyaaraya jaamacadda Burco iyo naadiga ku ciyaaraya ciidanka booliska Jamhuuriyadda gobolka Togdheer iyo Goodir Burco. ciyaartan ilaa hadda waxay u socotaa si habsami oo si nabadgelyo u socotaa, waxaana aan ku wadnaa inay socoto haddii ilaahay qadaro ilaa bil inuu socdo, bil ayaama inuu socdo ayay suuragal tahay. waxaan rajaynaynaa inuu si goola ku dhammaan doono insha allahu tacaala, in laga xuli doono xulkii gobolka Togdheer matali lahaa. waxaan rajaynaynaa xulkaasina inuu goola ka soo hoyn doono gobolkan Togdheer u soo hoyn doono sidii caadada lagu yaqaano gobolka. waxaa kaloo iyagana ku jira ciyaarihii fudud ee athletics-kii oo iyagana ay bilaabmi doonto aroorta, ay ku ordi doonaan labada naadi maanta wada ciyaaray aroorta tartami doonaan ciyaaraha fudud oo ka mid ah ordada 400, 800, 1,000 iyo 500 iyo 5,000 mitir ay ordi doonaan. insha allahu tacaala rajaynaa labada naadi maanta halkan ku wada ciyaaraya ay aroortaas kaga hor yimaadaan. geesta kale madaxa ciyaaraha ee gobolka Togdheer Kaysay Yuusuf Cige ayaa sheegay in si habsami socod wanaagsan uu tartankani ku furmay, isagoo ammaan u soo jeediyay taliyaha qaybta bileeska ee gobolka Togdheer oo ku tilmaamay inuu door muhiim ah ka ciyaaray hirgelinta tartankani. waxaana sidoo kale Kaysay ugu baaqay qurbajooga iyo ganacsatada dalka inay ka qayb qaataan hawlaha lagu horumarinayo barnaamijyada dhalinyarada gaar ahaan dhanka ciyaaraha. halkan maanta waan ugu sii diyaargaranaynaa oo aanu wadnaa wareegii sareeeda ee horyaalka gobolka Togdheer oo in badan 2 sano aan la qaban, iyadoo aan ugu talagalnay aanu ka xullo 15 kooxood ciyaarihii gobolka oo nagu soo foole bisha 4 oo wasiirku caymay. waxaan halkan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa dhalinyarada gobolka Togdheer siiba bulshada in ay arkaan garoonku siduu yahay, ay nagala shaqeeyaan midnimadooda iyo nabadgelyadooda, iyadoo intii aanu ciyaarta haynay mar walba inagu dhamaanaysay nabadgelyo wacan iyo bishishan wacan. intaana ay nagala shaqeeyaan dhalinyarada iyo gudida iyo dhalinyarada iyo booliska gobolka Togdheer. waxaanu jecelnahay jaaliyadaha dibadda sida imka inoo arkaan inoo muuqato inay gacan ku siiyaan muhiimadda gobolka Togdheer. haddii qurbajoog yihiin ee raabruca yihiin, waa garoonka mar baad dhisteen, mar labaadkii ku soo celiya inaad dhistaan oo gacan nagu siisaan ayaan idin leenahay. waxaan idin leenahay in badan ayaa ka dhiman garoonka, inta ka dhimanna waxa weeyaan intii aad ku ballan qaadeen. cid u maqan ma jirto, cidna u maqan ceelo u maqan, waxa u maqan idinka ayuunba u maqan, dowladuna ha ku eegina. gobolka Togdheer ayaa isagoo ah horyaalka gobolada Somaliland ee dhanka kubadda cagta, isagoo hore ugu guuleystay tartamadii koobka gobolada Somaliland 2 goor oo hore, halka 2 jeer oo kalena uu soo baxay ciyaaraha kama dambaysta. ugu dambeyntii tartanka horyaalka kubadda cagta ee haatan ay ku tartamayaan naadiyada gobolka Togdheer ayaa isaga ay ka muuqataa isdhexgal ballaaran oo ciyaaryahanada ka kala tirsan kooxaha kala duwan ee ka jira gobolka Togdheer, taasoo ay si weyn u soo dhaweeyeen dadweynaha garoonka u daawasho taga. Maxamed Caawid Maxamed, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Burco.